Assalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada mar kale. Maanta cashirkeen wuxuu ku saabsan yahay sheeko yar oo aan af Soomaali ku fasirayo. The farmer and his sons. Beeraleyga iyo wiilashiisa. A farmer had 5 sons. Beeraley waxaa u joogay 5 wiilood. 5 waxaa laga wadaa 5 sons wiilal. They were strong and hard working. Waxay ahaayeen wiilal qamarji iyo xoog u shaqaysto. Hard working, qofka xoog u shaqaysto. But they always quarreled with one another. But laakiin mar walbo way doodi jireen, quarrel, dood amba muran, with one another. Sometimes they even fought. Mararka qaarkood xitaa way dagaali jireen. Fought, dagaal. The farmer wanted his sons to stop quarreling. Beeraleygu wuxuu rabay wiilashiisa inay joojiyaan stop quarreling, muran iyo dood inay joojiyaan, and fighting iyo dagaalka. He wanted them to live in peace. Odaga wuxuu rabay wiilashiisa inay si nabad ahaan peace iskula joogaan. Plain words of advice. Talooyin badan or scolding did not have much effect on these young. Talooyin badan iyo qeelo waxba kama tarin much effect on these young people. People dad ayaa laga wadaa. The farmer always thought what to do. Beeraleyga mar walba uu ka fikiray thought what to do, wuxuu samayn lahay to keep his sons united. So wiilashiisa isku xiri lahay ama dad oo isku xiran ooga dhigi lahay. United waxaa laga wadaa dadka isku xiran. One day he found an answer to the problem. Maalin wuxuu helay jawaab. Found wuxuu helay jawaabna waxaa laga wadaa answer to the problem. Problem waxaa laga wadaa dhibaatada. Marka maalin wuxuu helay jawaab oo problemkiisa amba dhibkiisa ku saxo. So he called all his sons together. Marka wiilashiisa dhan called uu isku soo wacay. He showed them a bundle of sticks. Wuxuu tusay showed them a bundle of sticks. Qorayaal badan amba ulal badan, and said, kadib wuxuu yiri, I want any of you to break these sticks. Aniga waxaan rabaa mid ka mid adinka inaad jabisaan qorayaashan without separating them from the bundle. Without separating. Adinkoon kala soocin. Bundle waxaa laga wadaa way, like bundle waatana waxaa laga wadaa way isku jiraan, way badan yihiin. Adinkoon kala soocin waxaan rabaa inaad jabisaan, like break the stick. Each of the 5 sons tried one by one. Shanta wiilood, 5 sons, tried way isku dayeen midba mid. They used their full strength and skill. Waxay isticmaaleen, they used their full strength, xoogooda dhan,
Strength waxaa laga wadaa xoog, and skill. Skill waxaa laga wadaa aqoon amba xirfad. But none of them could break the sticks. Laakiin mid oo qoryaha jabiyo maba ku jirin. Dhammaantood qoryaha way jabin waayeen. Then the old man separated the sticks. Kadib odaga qoryaha amba ulasha wuu kala soocay. Separate, kala soocid. The sticks, qoryaha, and gave each of them just a single stick to break. Kadib wuxuu siiyey mid kamida hal qoray, just a single hal ayaa laga wadaa. Hal qoray oo ay jabiyaan ayuu siiyey. They broke the sticks easily. They broke the sticks easily. Qoryaha si fudud ayay u jabiyeen. Easily waxaa laga wadaa si fudud. The farmer said, Beeraleygu wuxuu yiri, a single stick by itself is weak. Hal qoray keligiisa waa daciif. Weak waxaa laga wadaa daciif. It is strong as long as it is tied up. Qoryaasha waxay adag yihiin markay isku jiraan amba markay isku xiran yihiin. Tied waxay isku xiran. Tied up in a bundle. Markay wax badan yihiin, bundle waxaa laga wadaa wixii badan. Likewise, you will be strong if you are united. Sidoo kale waxaad ahaanaysiin qamarji haddaad isku xirnaataan. You will be weak if you are divided. Haddaad kala tegtiin waxaad noqonaysiin daciif. Qisada waan akhrinaa anoo fasirin saad si fiican u maqashaan. The farmer and his sons. A farmer had 5 sons. They were strong and hard working, but they always quarreled with one another. Sometimes they even fought. The farmer wanted his sons to stop quarreling and fighting. He wanted them to live in peace. Plain words of advice or scolding did not have much effect on these young people. The farmer always thought what to do to keep his sons united. One day he found an answer to the problem. So he called all his sons together. He showed them a bundle of sticks and said, I want any of you to break these sticks without separating them. From the bundle, each of the 5 sons tried one by one. They used their full strength and skills, but none of them could break the sticks. Then the old man separated the sticks and gave each of them just a single stick to break. They broke the sticks easily. The farmer said, a single stick by itself is weak. It is strong
as long as it is tied up in a bundle. Likewise, you will be strong if you are united. You will be weak if you are divided. Casharkeena intaas ayuu ku ekaay. Fadlan muuqaalka like, subscribe, share ii dhaha. Waxaa inoo balan cashirkan cashirka ku xigo.